ayaa qiratay in uu dibdhac ku yimid qorshe weyn oo ay la damacsanayd Soomaaliya. Haddaba daawada warbixintan waxaynu ku eegi doonaa kaasi oo faahfaahsan iyo sida Kenya ay u fashilantay in ay Soomaaliya kaga guuleysato qodobkaasi. fadlan haddii aad kanalka ku cusub tahay fadlan subscribe noo sii. Wasiirka beeraha Kenya Peter Munya ayaa BBC-da u sheegay in maanta oo maalin Arbaca ah ay ahayd in la saxiixo heshiis ganacsi oo u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya, maadaama madaxweynaha Soomaaliya uusan ka soo qayb galin shirka urur goboleedka IGAD ee ka dhacay magaalada Nairobi ayna ahayd kuna lamaansanayd in lagu saxiixo heshiis la xiriira dhinaca qaadka ee Soomaaliya iyo Kenya. Heshiisku wuxuu horseedi lahaa in dib loo furo qaadkii Kenya u dhoofin jirtay Soomaaliya. heshiiskan ayaa lagu waday in lagu saxiixo shir madaxeedka urur goboleedka IGAD ee ka dhacay dalka Kenya, iyadoo la filayay in la qaado xayiraadii saarneyd muddada 2 sano ee u dambeysay qaadka ka imaan jiray Kenya ee la geyn jiray dhinaca Soomaaliya. bishii Juun ayay ahayd markii wasiirka beeraha Kenya uu shaaca ka qaaday in wadahadallada u dhexeeya labada dal ay galeen qaybtii u dambeysay si heshiis looga gaaro in xayiraadda Soomaaliya laga qaado qaadka ka imaan jiray dalka Kenya. Soomaaliya ayaa hakisay qaadkii laga soo dhoofin jiray Kenya 2 sannadood hortood oo ay taariikhdu ku beegnayd 19 bishii Maarso sanadii 2020 iyadoo sabab looga dhigay xayiraadaha COVID-19. Hakinta ayaa si kastaba ha ahaatee aan marna la qaadin kadib markii uu soo shaabaxay khilaaf diblomaasiyadeed oo u dhexeeyay xukuumadda xilligaasi jirtay iyo dowladda Kenya. Mamnuucadaasi ayaa horseeday in suuqa maalinlaha ahaa ee qaadka uu lumiyo in ka badan 50 tan oo qaad ah oo markaasi lagu qiimeeyay in ka badan 20 milyan oo shilinka Kenya oo u dhiganta ku dhawaad 200 oo kun oo dollarka Mareykanka ah. Arrinta xayiraadda ka qaadista qaadka Kenya ayaa waxaa si guud isha ugu hayay ganacsatada dalka Kenya oo iyagu quudareynayay inay mar u dhoofiyaan qaadka Soomaaliya ayaa suuqa ugu weyn ee qaadka Kenya qaata, waxaana dadka musharaxiinta ah oo ololaha doorashada haatan ku jira dalka Kenya ay markaasi gundhig uga dhigeen ololahooda doorashada in ay dib u furi doonaan haddii la doorto qaadkii ay qaadan jirtay Soomaaliya. arrintan ayaana dhabarjab ku noqotay aysan filaynin suuqleyda iyo weliba qaybaha kala duwan ee dowladda dalka Kenya. sida aanu ku sheegnay barnaamijyadeennii horeba, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka gabangaabsaday inuu si cad markaasi oo ku talagal ah ula kulmo madaxda dalka Kenya, maadaama uu ka baaqsaday shirkii ururka IGAD ee ka dhacay dalka Kenya. shirkaas oo ay ka soo qayb galeen madax kala duwan oo ka kala socday dalalka Djibouti, Ethiopia, wasiir ku-xigeenka koowaad ee Soomaaliya Mahdi Guuleed iyo madax ka socotay dalalka Uganda, South Sudan iyo Suudaan. waxaana kulankaasi lagu lafaguray xaaladaha abaaraha iyo dhinacyada horumarka qaaradda Afrika iyo saboolnimada dagaalada ka jira qaaradda. hase ahaatee dabankii ugu weynaa ee markaasi la damacsanaa Soomaaliya ayaa halkaasi ku fashilmay kuna burburay, kaasi oo ahaa in laga dhaadhiciyo madaxda Soomaalida in ay dib u furaan weliba si degdeg ah qaadkii ay ka qaadan jireen dhinaca dalka Kenya. waxaana ay markaasi ila diblomaasiyadeed sidaan hore idinku sheegnay sheegayaan in madaxweynaha Soomaaliya uu doonayo inuu halkan yimaado kadib markii isbedel uu ka dhaco dalka Kenya oo ay ka dhiman tahay muddo 34 casho ah. isbedelkaasi oo madaxweyne cusub lagu soo dooran doono, kaasi uu doonayo madaxweyne Xasan Sheekh in uu markaasi la jaan qaado madaxweynahaasi cusub. haddaba dadka Soomaaliyeed ayaa isha ku haya qorshahani iyo xilliga uu fuli doono. waxaan idinku soo gudbin doonaa barnaamijyadeena dambe wixii ka soo kordha arrintan la xiriirta qaadka ka taga Kenya ee la geeyo Soomaaliya ee dib u dhacyada baahsan ay hareeyeen.